واتهاي saaxiibayaal waxaan ku suganahay xarunta Inji oo ay la wareegeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya halkan saakaale sidii hore ayaa ciidamada dawladda ay la wareegeen sidaad u jeedaanba waa xarunta Inji ku taala magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug ciidamada dawladda ayaa la wareegay oo si buuxda u la wareegay oo amnigooda sugaya iyadana sidoo kale waxa halkan ku sugan hoggaanka Ahlus Sunnah wal Jamaaca hogaamiyaashooda sida Macalin Maxamuud iyo sidoo kaleeto Sheekh Cabdirasaaq Cali Miri Al-Ashcari iyo waliba Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan dawladda ayayna isku dhiibeen oo hadda wixii ka dambeeya maanta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xarunta Inji iyadoo markaas si toos ah amnigeeda u sugaysa oo amnigeeda waxa way la wareegtay waxaana nagala socotaan page-ka TV-ga Universal shir ayaa waxa uu socday madaxda Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo sidoo kale saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabo laga hadlayna waxay ahayd sidii dabcan dibadujin loogu sameyn lahaa mas'uuliyiintan isdhiibay dawladda ayaana ku guuleysatay in xarunta Inji oo iyadoo markaasi kamid ahayd meelaha Ahlus Sunnah ay degan tahay inay maanta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay iyagu markaasi ay la wareegeen oo si buuxda gacanta ay ugu hayaan waxaana nagala socotaan page-ka TV-ga Universal saraakiisha ciidamada dawladda iyo sidoo kaleeto ciidamada xoogga dalka ayaa ku sugan xarunta Inji qaybahooda kala duwan ayaa taagan soo jeedaanba ciidamada waa kuwaasa iyaga ayaana ku sugan oo amnigooda sugaya waxaana nagala socotaan page-ka TV-ga Universal طبعا ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxa u suurta gashay inay si buuxda u la wareegaan gacan ku haynta xarunta Inji halkan oo shalay iyo sidoo kaleeto dhowrkii maalmood u dambeysaba dagaal uu ka socday una dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa Ahlus Sunnah qasaaro uu jira balse qasaaraha si rasmi ah looma ogaan karayo maadaama dagaalku ahaa dagaal xoog badan oo in muddo socday hase yeeshee xaaladdu ay degan tahay iminka oo jawigu waxa uu ku soo laabtay mid degan dadkuna intooda badan waxa ay markaas iyagu muujinayaan dareen ku aadan in la heli doono system hal meel u wada jeeda oo dawladnimada markaasi ku saabsan wixii akhbaaraad ah ku soo kordha waxaad kala socon doontaan halkan haddii booyna uu raalli ka noqdo saraakiisha ayaa ku sugan goobta soo jeedaanba wakaasa ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan iyo sidoo kaleeto ayaa iminka xerada dhexdeeda gaaf wareegaya oo xerada dhexdeeda jooga daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh mid degan maanta magaalada Dhuusamareeb inkastoo labadii maalin u dambeysay xaaladdu ay ahayd mid dagaal oo balse hadda waxay u muuqataa mid jawigoodu degan yahay oo dadkii ayaa markaasi iyagu magaalada soo baxay oo meheridihii baa la furay inkastoo dagaalka magaalada Dhuusamareeb ka dhacay uusan magaalada dhan ka wada socon oo hal qaybood kaliya uu ka socday oo xarunta Inji ay agaarkeeda iyo xarunta gudaheeda uu ka socday ayaa hadda waxa ay u muuqataa arintu inay isbedeshay oo si toos ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay ula wareegeen gacan ku haynta xarunta Inji amnigeedana iyagu iminka ay sugayaan saddexdii mas'uul Ahlus Sunnah u taliysana iyagu ay ku jiraan halkan oo qaybahooda kala duwan xarumaha halkan ku yaala ayay ku sugan yihiin oo shirar kala duwan uga soconayo si markaasi isku dhiibitaankooda iyo waxyaabahaas la xiriira ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kaleeto saraakiisha kala duwan ee dawladda ka tirsan halkan ay kula shirayaan waxaana nagala socotaan page-ka TV-ga Universal ciidamada ayaa afarta dhinac ka xiga xarunta amnigoodana sugaya
shacabkii ayaa magaalada soo galay oo meesha soo galay page TV Universal weeye runtii halka waxa ku sugan ciidamada kala duwan baabuurtan waxa saaran hoggaanka Ahlusunna madaxdooda waxa ay iyagu markaasi dabcan halkan la filayaa in laga bixiyo oo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor loo geeyo si halkaas ay shir ugu wada qaataan